guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha dalka ayaa laga filayaa in ay ku dhawaaqaan natiijada ka soo baxday doorashadii qof iyo codka ahayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. doorashadan oo 25 Diseembar Khamiis aynu ka soo gudubnay shacabka Muqdisho ay u dareereen ayaa waxay u codeynayeen ku dhawaad 20 urur siyaasadeed kuwaas oo ku loolamaya xilka ururada iyo sidoo kale xubnaha golaha deegaanka ee xamar. haddaba shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo la dhex qaadnay codbaahiyaha VOS Somali TV ayaa wax ka weydiinay waxa ka soo bixi kara guddiga doorashooyinka qaranka iyo natiijada hordhaca ee laga fili karo. doorashada waxa laga filan karaa qeyr ma horta marka hore ka rajeynayna iyo wax maxay tan kaliya dadkii tartamayay oo asxaabta iyo qeybaha kala duwanay ay soo dhaweeyaan kuna farxaan dadka Soomaaliyeed waxa waaye ay isbedel u noqdaan horta ka rajeynayna marka koobaad waxaan ka filaynaa markii sida reality-ga ay wax naga guuxayo loo fiiriyo waxaan ka filaynaa 90% oo qaato xisbi xaakim ku qaato iyo inta kale xisbiyada loo qaybshay intaas baan leenahay anagu maskaxdeena waxaan leenahay intaas baa soo bixi doonta anagu leenahay waa ama siyaasadaan ha ahaato ama anaan xitaa taageerayaasha xisbiga kamid ahayn haddana waxaan leeyahay waxa soo bixi doona oo 70% oo xisbi xaakim ku qaato iyo inta kale xisbiyada kale loo qaybiyo golaha deegaanka doorashada ee gobolka Banaadir waan rajaynayaa in horta GSB ay guuleysato inkastoo SB badan ay la tartameen yani horta GSB hadda waxaan saleenahay guusha ayada u saadaaliyeenna balse tawfiiq iyo tamaasi karaama iyo ayaan waa iska dab dhawaan balse horta doorashadu si cadaalad ku dhacday musuqmaasuq ma jirin waayo waa wada joognaa codkeena qayb ka aan dhiibnay xuri xalaal loo tabay dadkan kale oo jaziiro ku shiray يعني نفع وديد معنا أي هذا ما أنت سبيدو دي بنقشن لا أنا وهم ملاي أنا أي بقاضي لا يعني مركا أدي هذا مسؤول من الدورشات جوشة ما هم رجينا إن حزبي هذا ثلاثة هاي. أنا مركا دي نقولين وان معنا ودهم كم معنا كارك وعدين ما قاعدين لكن ما له وتو ورت تاريخ ده قشة سواء صبته كنت صنع كبعدي دورشنا يدلك صومالي كده على ورتوها الدوق وحان تصني إني يعني دورشة لكن أنا دورش كان عقب إلى هذا وين دور ودن مسيف ياي ما له كل دلوقتي سفك أو سو وروح بدن أي واحد بصور مع ذا أدخل سودوين marka xasleeya wax weyn laga maqlanayo sidoo hore u sheegay xilwaanka wuxuu yiri hadaa dooratid dirxaan fatur soo baxa xasan shiiqa soo baxa marka anaga waxaan ka TSP ma filaynaba natiijada marka waxa waaye sidoo kale waxa jira xisbiye kale oo tartamay laakiin xisbiyada kaleba waa malxiisaan dhigi karaa lama xasan shiiqay ka socdaan oo iyo camir leewa marka doorashadan waxaan leeyahay anaga wadooyin bilaash loo xire anaga shaqooyinkeeni iyo maaragtay waxay naga joojiyeen waxba kama jiraan maanta marka waxa waaye taas lagu laabtaa dhaani guddiga waxba hadii ku hal soo bilaabo markaas aan qanci karnaa Khamiis aynu ka soo gudubnay taariikhduna ay ku beegnayd 25 Diseembar ayaa shacabka magaalada Muqdisho waxay u dareereen doorasho qof iyo cod ah taas oo ahayd tijaabo ay sameysay dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ku guuleysatay 58 sano kadib shacabka Muqdisho ayaa Khamiis u dareeray doorasho qof iyo cod ah waxayna ku soo dhamaatay si nabad ah ayaa Yusufa VOS Somali TV Muqdisho.